السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh. marka xigtana waxaan u mahadcelinayaa walaalaha nagu dhiirgeliyey in aan dib u bilaabno barnaamijyadeena Androidka. waxaana u mahadcelinayaa walaalaha si weyn uga qayb galay su'aalaha diiniga. idinka faa'iido ayay idin tahay, anagana faa'iido ayay noo tahay. haddaba maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad u xiiso badan oo la magac baxday application laga yaabo in aadan weli arkin. barnaamijkan hore ayuu u socday, haddana waan sii xoojinaynaa insha Allah. haddaba daabaca shirkeena aadka u xiisaha badan. abka kuwaad waa smart screen. smart screen ayaa ku sahlayo in aad taleefankaaga ku damiso adigoo laba mar taabanayo screenka oo aadna ku soo kicini karto adigoo aadan taaban taleefankaaga. smart screen waxaad ka heli kartaa Play Store-ka. markaad soo kacsato isla markiiba wuxuu ku weydiinayaa in aad ka dhigato mid aan tirtirmaynin. marka taabo OK, kadib sii taabo activate si aad ugu dhigato mid aan tirtirmaynin. double tap oo ah inaad taabato screenka laba mar kadib oo sidaas isku xiro. except Facebook Messenger oo ah in uusan xirmi karin marka uu kacsan yahay Messenger-ka. proximity sensor haddii aad furto waxaad taleefankaaga ku soo kicini kartaa adigoo taaban. abka labaad waa material notification. abkan ayaa statuska ama notificationka u bedelayo sida nugaad Oria Notification, inkastoo aan magacan la shaacin. haddii aan taabto enta wuxuu isku bedelayaa qaabka nugaad, haddii aad taabtane oda wuxuu isku bedelayaa qaabka Oreo. sidoo kale haddii aad taabto bida wuxuu isku bedelayaa Notification. kalarada qaabka aad doonto ayaad ka dhigi kartaa iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay oo aan inta lagu soo koobi karin. abka saddexaad waa age calculate. abkan ayaa kuu sahlayo inaad ku ogaato da'da aad jirto. keliya ku qor meeshan sanadka aad dhalatay iyo bisha iyo maalinta.